Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Cashirkeeni maanta waxaan ka bilownay the possessives. Possessives waa sifaha lahaanshaha. Waxaa hoos yimaada ereyada loo isticmaalo ama loo adeegsado in qofka wax uu leeyahay lala xiriiriyo ama wuxuu leeyahay uu sheegto. I am, you are, I am-ta markaa dhahdo, for example waxaa dhahday aniga waxaa leedahaa waxaan ahay I am from Somalia, waxaan ka yimid Soomaaliya. My name is Cali, magaciigana waa Cali. Marka I am wixii aad tahay sheegaysaa kadibna waxaagaa sheeganaysaa. Okay? I'm a businessman, waxaan ahay ganacsado. My office is in the city center. Waxaan ahay ganacsado, xafiiskaygana wuxuu ku yaalaa magaalada bartamaheeda. Waxaad dhihi kartaa oo kaleeto I am a student and my school is called maybe Al-Imr Sky Online English oo kaleeto. So marka my waa waxyaabaha la adeegsado oo macnaha waxaad leedahay inaad adiga sheegato. Haddaad rabto waxaad leedahay my mother hooyaday, my father aabahay, my sister walaashay, my brother walaalkay, my house gurigeyga, my car gaarigeyga, my laptop computerkeyga, my phone telefonkeyga, my book buugkeyga. Wax walbo aad leedahay inaad isticmaasho haddaad rabto my waa inaad dhahdaa. Adigana iska hadlaysid. Qof kaleeto oo kaasoo horjeeda markaad la hadlaysid waxaad dhihi kartaa you aa u isticmaalaysaa. You are a student. Your character is very good. Adiga waxaa tahay arday, dabeecadaadu way fiican tahay. You are from China and your name is maybe Hassan. Okay? You are from Kenya. Maybe your name is Faiza. So that is how we use marka you are. So your mother, your father, your car, your house, your phone, so that's how we use. Okay? This is Gina. Tani waa Gina. Gina's last name is Sifili. Marka esta Gina's la socoto waa ayadana waxaa loo isticmaalaa in qof macnaha wixiisa lala xiriiriyo. Marka waxaa laga wadaa Gina magaceeda u dambeeya waa Sifili. Okay. So marka Gina's last name aan lahay. Marka haddaad dhihi rabto haddaad dhihi karo leeto Aisha's last name, Aisha's house, Aisha's mother is in the hospital, and Halima's father is a businessman. Abdi's house is opposite the mosque. Marka nii rabo kaleeto. Marka Abdi estaasaa la iskaga hadlayaa marka esta waxaa loo yaqaanaa sifaha lahaanshaha. So markaad dhihi rabto aniga telefonkeyga waa iPhone, waxaa leedahay my phone is iPhone bisaa dhihi kartaa. Laakiin haddaad dhihi rabto kalarka telefonkeyga waa caddaan, markaa dhihi rabo waxaa leeyahay my phone is color. Marka estaas waxay u socotaa telefonka iskale kalarka laga wadaa. Phone is color. So inaa fahanteen rajeynaa. Marka waxaad dhihi kartaa hadda Gina's last name waxaa isku mid ah her last name waa isku macno. Gina's last name magaceeda u dambeeya Gina ama her last name ayada magaceeda u dambeeya. Paul's last name magaca u dambeeya Paula was Johnson. His phone number telefonkiisana waa 21355432220. Okay? Our address ciwaankeena we are from Los Angeles. Waxaan ka imaanay ama kasoo jeednaa Los Angeles. Wida marka waxay qaadanaysaa our loo isticmaalaa marka lahaanshaheeda lala xiriirinayo. So waxay noqonaysaa our address is 613 Passat Drive. You and Mark are from Boston. Adiga iyo Markna waxaa kasoo jeedin Boston. Labada qof waa la hadlaysa marka adinka waa mogtahay. Your phone number telefonkiina waa 617-228-5969. And Mary and Peter
are from Boston. Mary iyo Peterna waxay kasoo jeedaan Boston too sidoo kale. Their address ciwaankooda ayakan kaa doona marka laba qof aqrinta is 225 Walnut Ave. Okay. Avenue aa laga soo gaabiyey marka tan Avenue. Marka waxaan rajeynaa the next one waxaan haysana waa what is your name magacaaga waa maxay please fadlan my name is magacaygu waa bla 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 adaa sheegaysa magacaaga wuxuu yahay hebel okay. What is Mr. Tanaka's first name magaca Mr. Tanaka ee ugu horeeya waa maxay first nameka Mr. Tanaka waa maxay his first name magaciisa koowaad is Toshio waa Toshio. And what's your phone number telefonkaagana waa maxay adiga my phone number is adaa telefon numberkaaga sheegaysid. What is Sonia's last name Sonia magaceeda u dambeeyana waa maxay her last name is Campos magaceeda u dambeeyana waa Campos. Okay. Introducing yourself and others inaad adiga aad isbaratiin adiga iyo dadka kaleeto adiga dadka kale isbaraya you tell them and then othersna dad kaletana dadka baraya. So hello I am John Roberts. Hello aniga I am John Robert waxaan aniga ahay John Robert ayaan ahay. Pleased to meet you waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo Mr. Roberts. Mr. Roberto. My name is Toshia Tanaka. Magacaygu waa Toshia Tanaka. Nice to meet you. Kulanti wacan. Mr. Tanako. Nice to meet you. Af Soomaaligeeda saxda ah ee ku habboon meeshas aan rabo inaan geliyo waxay noqonaysaa barasho wanaagsan. Okay. Laakiin erey ma u ahan macnaha guud ka tahay nice to meet you barasho wanaagsan macna kale ana qof cusub markaas baratiin so ayaga markay qof cusub isbartaan waxay dhahaan nice to meet you marka nice to meet you waxaan dhihi karnaa kulanti la kulan wacan la kulan macnaha fiican ama laakiin barasho wanaagsan ku habboon tahay meesha haddii wax geli la dhihi lahay. But because of Soomaaliga hal eradi loo fasiro nice waa fiican meet waa kulan you adiga ina adiga kula kulmo way fiicneed ama ay noqonaysaa haddii hal loo fasiro. Okay. My name is Janet magacaygu waa Janet. I'm Sonia. Nice to meet you. Magacaygu I'm Sonia adigana Sonia leedahay nice to meet you adigana kulanti inaan kula kulmo sidoo kale way wanaagsaneed. Nice to meet you too adigana sidoo kale. Pleased to meet you waxaa isku mid ah nice to meet you labadooda mid kala rabtaa isticmaali kartaa. waxaan dhihi kartaa qofka pleased to meet you ama waxaan dhihi kartaa nice to meet you ku faraxsana inaan kula kulmo ama kulanti wanaagsan. Mr. Boston waxaa wada sheeka Mr. Boston qofkaana qof barayo saddexda qof mid barayo. Mr. Burton now this is Mr. Pierce kana waa Mr. Pierce. Pleased to meet you macnaheedu waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo Mr. Pierce waxaa dhahayo qofkii markii wax la barayay. Pleased to meet you too adigana sidoo kale waan ku faraxsanahay inaan isla kulanno Mr. Burton Mr. Burton waan ku faraxsanahay. Teresa this is Frank. Teresa kani waa Frank. Hello Teresa see tahay Teresa. Hi Frank nice to meet you. Frank waxay nice to meet you. Nice to meet you barasho wanaagsan ama kulanti wacan. Corner culture corner dhaqamada kala duwan ee qaabka la isku salaamo greetings from all over the world salaamaha kala duwan salaamaha laga isticmaalo all over the world dunida oo dhan from ka imaaday laga keenay ama ka imaaday all over the world dunida kala duwan. Shake hands gacmaha in la isgelisho la isku raxo wow xagaasas la isku yara ruko sujuud ruko malaha mase la isku foorarsado kiss in la isdhunkado dada intaan ba isku salaamo anaka dhaqankeena waa shake hands. I hope ina shake hands samee doontiin. And the next part waxa waa spell your name ina magacaada spelling garay karto. So try to spell your name haddii cali lagu dhaho waxaa leedahay A L I so marka ABCD dan
inaad barato waxay muhiim ku tahay magacaaga haddii spelling lagu dhaho qofka inaad spelling gareyn kartaa lagaa rabaa a b c d inaad fahamsan tahay magacana qofka uu spelling gareysid okay so alphabetics waxaa kamid ah a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z marka maxamed oo kale haddii lagu dhaho waxaa leedahay m o h a m e d spellingkaaga saasaa u sheegtay magacaaga hingaadiisa waa sheegtay marka sida caadiga profileka markii la qorayo waxaa la qoraa name address iyo phone marka magacaaga addresskaaga iyo phonekaaga magacaaga ciwaankaaga iyo nambarkaaga okay marka qaybtanna waa qayb hore la xiriirtay wax macnaha ma sheegayso so su'aalaha chapterkan ninkan laga rabaa inaad buuxi kartid halkan meelaha bannaan buuxi haddii aad cashiradii hore aad fahantay okay so ardayda waxaa laga rabaa one you spell your name and give your address and phone number waxaa laga rabaa inaad cod soo duubtid adigoo magacaaga sheegaysid waxaa leedahay my name is hebel hebel and my address is in Mogadishu Hargeysa magaalada magaca aad joogta sheegaysa Garowe then you say street phone number street hebel street ama degme hebel gurigaaga nambarkiisa hadduu number leeyahay that's it and phone number iyo telefonkaaga sheegaysa my phone number is aa leedahay waa sheegay nambarkaaga so su'aalaha lagu weydiinaya waxaa waaye your name what's your name namekaaga sheegay how do you spell that magacaagana waa soo spell garaynaysaa waxaa leedahay my name is and the spelling of my name is spelling sheegaysa telephone number kayga is my phone number is what's your address my address is so su'aalahaas waxaad uga soo jawaabaysaa exercise ardayda loo diray waa midkaas intaan ka bilaabayno chapter 2 insha allah waxaan rajeynayaa khayr badan marka kulanka xigo insha allah ilaahay nabad ha nagu wada gaarsiiyo waan idin salaamayaa